بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفريدني كسر سنة بشهر رمضان وحين ودن بيي فضائشة بشهر رمضان وكسر هذا اللي لودني كلمة ودن بيسي جارحان وحن كسر هذا اللي صومكو إنه يهي مد لغو رافو ذنبك لغو رافو صيام كيسة قيام كيسة إن لغو رافو ذنوب لغو رافو ما تحققنا إن شاء الله تعالى سنة النبي كسر ورتي عليه الصلاة والسلام وكسر سن صوم كفدائشيسة إن أي كمتاي إن الله سبحانه وتعالى صومك وقاشان وكدقي قفك وكقاشان تنارت وكقاشان النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة كجنة أحدكم عن القتال. صومك وقاشان لمدة قاشانك مد إذنك إذا كمدة وإساقدقو cadowgiisa markii uu laga dagaalamayo waxyaabaha lagu soo ridayo haday seef tahay haday ay waran tahay iyo hadii ay tahay waqtigan hadda waxyaabaha rasaasta la ridaa hadii ay tahay wixii ka celin lahaa kaas oo kale ayuu soomkuna la mid yahay oo qofka wuxuu u yahay gaashaankaas uu yahay ilaalinaya uu yahay muxuu ka ilaalinayaa laba shay buu ka ilaalinayaa adduunka wuxuu ka ilaalinayaa shahawaadkii naar gaarsiin lahaa aakhirana wuxuu ka ilaalinayaa نارتي أيوك إلى النيا. صادرت هذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كالأولى من صام يوما في سبيل الله باعد الله. النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله قفك مال صوم إلهي درتين أصم سبحانه وتعالى باعد الله عن النار باعد الله عن النار باعد الله وجهه عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحو كغا دheereynaya qofka wajigiisa naarta 70 kharifan 70 sano in loo socdo 70 kharifku waa dayrta laakiin dayrta iyo gumidka tirada waa isku mid tiradu isla halkii ay imanaysaa 70 kharifan 70 sano in loo socon lahaa buu Ilaahay naarta kaga dheenaya waa yawm waahid fama baaluka 30 maalmood ama 29 bari qofkii soomay maxaad malaynaysaa 29 hal hadii lagu daro 29 kale hadii lagu daro oo 30 noqoto ama 28 hadii lagu daro bisha haday ku dhamaanaysa maalin lagu daro 29 ay noqoto hal maalin hadii la yiri 70 sano in dhanba lagaga fogeynaya naarta qofkii hadii lagu daro yoomkii 28 kale ama 29 kale maxaad malaynaysaa qofka naar intay isu jirsanayaan aad buu uga dheeraanaya soomku marka waa gaashaanka ama waa dayrka qofka isaga iyo naarta u dhaxeeya ee ka difaaci lahaa way sida oo kale adduunka qofku markii inta uu joogo soomku wuxuu u noqonayaa gaashaan wuxuuna uga noqonayaa shahawaadkii saadateed buu nabiga sallallahu alayhi wasallam yaa ma'shar ash-shabaab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aqadu lil-basari wa ahsanu lil-farj faman lam yastati' ama fa in lam yastati' hadusan awoodin fa alayhi bis-sawm qofkaasi soom ha aadabu nabi sallallahu alayhi wasallam soom ha laazimo fa inna lahu wajaa wuxuu noqonayaa dhufaan buu noqonayaa bimaana shahwadiisi buu jabinaya shahwadu ayuu ka dilayaa sida darteed ba soomku waxa uu fawaa'idiisa ay kamid tahay inuu ka ilaaliyo adduunka inta joogto shahawaadkii uu ka ilaaliyo iyo xumaantii inaad aado aakhira marka aad tagtana inuu naarti uu ka dheereeyo oo ka fogeeyo oo dayr ka xijaabaya naarti uu noqdo fadaa'isha soomka ay kamid tahay waxa la doonayaa marka walaalayaal qofka muslimka soomkiisu si uu noqdo soob tabargal ah oo naar ka difaaco waa inuu ku dadaalo soom sax ah inuu ku dadaalo oo la socdo qiraa'atul quraan iyo dhikrigi iyo infaaqi fi sabiilillah ee la socdaan soomkaaga inuu noqdo ayaa la doonayaa oo cibaado aad ku kabto soomkaaga ilaahay waxa weydiisanaa subxaanahu wa ta'aala soomkeena gaashaan shahawaadka adduunka inuu nooga dhigo gaashaan naartan aakhira ilaahay inuu nooga dhigo جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.